maxaad ka ogtahay qisada shakhsiga isagoon hadal ka qusliyey malaayiinta dadka ku nool daafaha caalamka? magaciisa dhabtay waa Charles Spencer Chaplin. waa jilaa mijaajiliste, filim soo saare, la xamaysta iyo qoraafaneed Ingiriisa. wuxuu dhashay 16 Abriil sanadii 1889. magaca uu ku caan baxay waa Charlie Chaplin. wuxuu ku dhashay deegaanka Walsworth ee South London. wuxuu ku caan baxay jilida filimada aamusan ee caddaanka iyo midowga. waxa lagu yaqaanay uu jilaayada kale kaga socnaa shakhsiyadda filim walba u eeg caydha saboolka ee baahan. qodobkaas ayuuna kaga mid noqday dadkii ugu mudnaa sooyaalka tiyaatarada caalamka. aabihii waa Charles Chaplin-ka aabbaha, hooyadiina waa Hannah Chaplin. waxay Charles dhaleen guurkooda 4 sano kadib. inkastoo labadiisa waalid ay ahaayeen hobollo masraxa wax ka jila, haddana hana qaad miyay ahayn. markii dambena xiriirkooda waaba buu fool xumaaday oo aabihii ayaa hooyadii ku ogaaday inay la magaalaysatay nin kale. ninkii kale ayana ur qaaday oo wiil ayayba u dhashay. hooyadii magaca masraxa looga yaqaanay wuxuu ahaa Lily Harley. Charles caruurnimadiisa wuxuu ku soo qaatay magaalada London, balse waxay ahayd mid faqriya wax la'aantu hadhaysay. aabihiina wuxuu ahaa sikhraan u shaqaysta dhaladiisa khamriga, badankana guriga ka maqan. aakhirkiina siduu khamri iskugu dhoreeyey ayuu beerka gulay oo baaba'ay, wuxuuna dhintay sanadii 1901. wuxuu gudagalay matalaadda iyo jilista isagoo dhallaana. dugsigii waxbarashadana wuxuu ka tegay isagoo jira da'da 13 jirka. markii uu 19 jirsadayna wuxuu heshiis la galay shirkadda jilista ee Fred Karno. shirkaddaas ayaana u dirtay Maraykanka, taasina waxay siisay fursado badan. sanadii 1914 ayayna ahayd markii ugu horreysay ee uu si rasmi ah uga soo baxay dayaxan Charlie Chaplin ee lala qabsaday fankiisa iyo jilidiisaba. sanadii 1918 wuxuu ka mid noqday dhowrka qof ee adduunka ugu caansan. filimkiisii ugu dambeeyey ee uu jilaa wuxuu ahaa Countess from Hong Kong oo uu matalay sanadii 1961. wuxuu ahaa filimkii ugu horreeyey ee midab leh iyo filimkii ugu dambeeyey ee uu jilay. odhaahyaha wax ku oolka ee laga soo gaaray dayaxan Charlie Chaplin waxaa ka mid ahaa: 1. weligay waxaan ahaanayaa xaraabayste, sidaas ayaana siyaasi kasta kaga sarreeya. 2. nolosha waxaa la soo kulmay dhibaatooyin aan yarayn, balse dibnahaygu ma oga oo way dhoola caddeeyaan uun. 3. qofba qofkuu ka wanaagsan yahay wuu ka dhibaato badan yahay. 4. muraayadaydu waa saaxiibadan leeyahay tan ugu wanaagsan, oo haddii ay aragto anigoo ooyaya iyadu ma qosasho. ha iloobin inaad la haysarto muuqaalkan, sidoo kalena aad nagula saaxiibto barteena TikTok iyo barteena YouTube.